dadaalka hobdooban hayna danyeer ballanka dulmiyana idadka aamini daacadnimada dhanka adeegasa dadkii dalkan hiraasan dahabshil groupna saasu hawlaad shirkii sanadu dambaysa koonfurdoodeen aan u jeedin dhaqaale fara badan anagoo ugu yaraan aan maalgelinay 830 maalgelin in ka badan aan sameynay taasoo dhaqaalaha waddanka qayb ka qaadanayso barnaamijka aan maalgelinayno waa 3 barnaamij oo islaamiya مرابحة مشاركة مضاربة. تاسو يمدو كويس مقالة. حبس كم يبلغ فرعين أغسطس أو كتومي تدوري. ميل مالجي. سيد بالله تشانقو كويس. بس أبربوا يشوف يسكونه. المقالة دي ورد كويس مقالة. هذه العادة كلمة المرة هذا السياسية. طبعا على أساس كذا. dadaalka hobdooban hayna danyeer ballanka dulmiyana idadka aamini daacadnimada dhanka adeegasa dadkii dalkan hiraasan dahabshil groupna saasu hawlaad shirkii ku darsata degdeg lanka andiirasa xirfadii aaminnimo leh dahabshil lan gorode ku darso dahabshil hawlaada dahabka hel ada oo idar roogdo inas dhibna telefoonka som telefoonta ku fiirsoy bangi saartis furunta xirfad i war hasaar leh himigi bulshada heer islaan yaakin hasliday dhikoy beesada dahabshil bank international كفروي دهبشيل بانك انترناشنال اكاونت شله كارن اكاونت 7 اكاونت يو انفستمنت اكاونت كهيروي اكاونت كدهبشيل بانك انترناشنال اديك اسرق ايده ادو استعمال تليفون كسمتل وي اديك ايده بس ان قدر كرته وانا لكن قدر كره اكاونت كدهبشيل بانك انترناشنال دهبشيل جروب ان استعمال تليفون كسمتل اديك انترنت كفورجي هواري شيء اد انسري ان استعمال فويس كول فيديو كول مربع هذا هتوش سيم كارد كسمتل من استعمال كرته اديك هاي oo hakii kala hariir koran ama kala hariir korta qaraabada adduunyada shal jiraan qiimo jaban iyo idsaafe dahabshil group dantaw dantiye الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. أجل حسنات عن قروفة اللي هي بسيء التنجيب أيضا قرآن الكريم ولبا تهفترون هاينا حفلة قرآن بدن جيك انتقل لها أيضا مهمة تانية فرنتان اسمها قصة تحشير جروب سهر الانشاقبة ولبا قيلون حقوة أنا مدعونها دولة جهرات بكونفور كالباء بدن التحسيس حسن محمد الفكرين بدونيها بارلمان كعبد القادر الشريف شيخونا وحفلتها في الغيب قريب
wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka baay madaxda degmada kudareerta ganacsatada qeybo shilguun ee dahabshiil group marti sharafta dahabshiil gobolada dalka kukoyti ganacsatada qeybasha shilguun odayaasha dhaqanka culimada aqoon-yahanada koonfur galbeed xafladda dahabka iyoona ku qayb galeen bilaanta saxaafadda dhammaan waliba siinka oo aanay xafladda quruxda badan dahabka dhismaha cusub ee dahabshiil group oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti galeen daqiiqado ku hor dhismihii suurta lahay ee dahabshiil ee bartamaha magaalada kataaliisi waddanka saasin ee dahabkuri qeybasha shilguun kormeeday سأريده وهري قرطة شاقي بدأ هشيل الجروب اسمه سورة أو برطمة مجالة كتالة أو قرقس ورقسو ولد هو اسمها سورة بدن قرطة كتالة هشيل الجروب الجديد مثل ما لو كان قرطة صوماليا أما هو بالفعل الصومالي هو كان مركا ساسوك الولد بجرى مشاريع هشيل الجروب بدأ هشيل يكفوني كونفرس البيت gacantiga dhalinyarada oo kale waliba heetan galan qobdi ganacsi yar yar soo badi qaarsan ganacsi weyn galan qobdi marka dahabshiil wala kala taasay dheerana bangi oo qiimada oo runtii bulshada koonfur galbeed walhun intari intii meel raay deerin ka horo adeegyo bulshada aydan marka xafladii kala doona marka oo dheer kala waliba qoayay سيرين اسمه مسلم كتب وراء لما كنت علماء أول كم جعبوا شيخ عبد القادر حسن شيخ عبد القادر أقوى سيرين ملهم وكأيد من أدوالهم كأرتا فليتفضل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحن سيجارة سلامية مدحوينها مدحوينها كونفور galbeed iyo guud ahaan xukuumadda iyo dowladii saba sidoo kale insha Allah taala waxaan maanta aad ugu faraxsanahay oo ku hadlaya magaca culama diinka magaalada Baydhabo runtii inaan ka soo qayb galno daahfurka daarta weyn ee dahabshiil hadda sida la sheegay ku taala magaalada bartankeeda runtii bilicda magaalada بنعمل ولا رنتي آد قبل وضعتي إن شاء الله تعالى وحن إن شاء الله تعالى ما كنت هذا يكون علماء الدين أهم وحن روا إن شاء الله تعالى إن أنت هشيل معها ما أنت ما أنت نقول في هشيل حملة أنا قاعد بالله رنتي وجهتك دارت أسماء في مهارة لكن وحن إن شاء الله تعالى عدينا أنت هشيل الآن مرة بسوق وينه مرتدى حتى مرتدى نوعنا علينا السوق هذا دهشيل كعلماء الدين هان مركي عن كادرو هؤلاء بعضهم بعض أحمري وكدعي كونفور galbeed عن magaalada Baydhabo waxaan runtii dadka ugu hambalyeynaya hadda xiriyaha uu sheegay sadaqka dheeriga ah oo koonfur galbeed mas'uulka ay ka wadaan sida bangiga la sheegay oo ognahay inay ganacsatada ma ka faa'iideysteen sida isgaarsiinta iyo internetyada حوارها له هذا الهرمات المسلمين تاسع وهم بيننا إن شاء الله تعالى أروا إن المشهد كحصه فعلوا الدين أهم تهشيل وهي أبدا ويد المساعدة أي تلقي ستي قبل كان عن جمله وأنا شخصيا عن كل هذا رأي كمدلوي أنا تاسي حقيقة هذه أبارة العلم waxaan ka mid ahaa raggii dahabshiil markay gacanta musaacada ka geystay magaalada Baydhabo raggii qaabilay oo ka gudoomaan ka mid ahaa sidoo kale haddii masaajido waaweyn la dhisaayay sida kan hadda aan gacanta ku hayno iyo kii hore aan soo dhisnay dahabshiil waxaan ugu mahadcelinayaa oo aan rabaa inaan mujtamacan balaaran gobolka Baay iyo madaxdooda aan u cadeeyo inay gacan weyn ka geysteen waxaan kaloo rabaa sidoo kale idan insha Allah taala inaan وشيء وبدأ إلى الإنسان وقت ونتبو حسوسيو إلى كلام قاتل هذه أوراق دعين هذه أول ودعين هذه مثلا مسابقين كقرآن كان قبل إنه هذه مساجد عند السينو إنتبه وحائه تجهبشين أن جعلها مانتي إن السيجارة وحصه كعن تسكينه هذا إكجستين ونقوم هالعلمينه إن شاء الله تعالى وحكون أحسن معي إن ما أنت جالس تسكينه هذا الجسر مقالنا إبرنا تكبر غلطه فرتان كذا الآن ما أنت قلت
taasi maxaad ay noo tahay kooxdama u diin ahaan marka waxaan leeyahay dahabshiil group soo dhawaada waa idin garab taagannahay waa idinla shaqaynaynaa waa idin marxabaynaynaa waxaan si gaar rabaa inaan u tuso xafiiskan ku yaala magaalada baydhabo oo sheekh ibraahim cali cabdi iyo kooxdiisa tiimkiisa waxaan rabaa madaxa martida ah inaan u caddeeyo inay si wanaagsan weji furan leh qalbi furan leh ay noola shaqeeyaan haddii aan nahay baydhabo taasna aan ugu hambalyaynayno oo aan leenahay insha allahu tacaala waa runtii ku qanacsannahay marka insha allahu tacaala warka waxaan kusoo gabagabeynayaa khayru kalaami maa qala wajalla weye waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idhaahdo dahabshiil guud ahaan gacanta musaacadada ah inay sii laba laabaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka mbaay inay sii laba laabaan gacanta ay u fidinayaan ee mursidnimada ah inay sii laba laabaan ayna insha allahu tacaala sida hadda ay yihiin iyo sakis ka fiicanba ay ku sii wadaan hada wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu سوداني عبد العزيز حسن محمد خبط جرين بدوميها قرها برلمانكا كوفر قلب الصوماليا بدن عبد القادر الشريف شيخونا قلها وزيرة قلها برلمانكا بدوميها قبلكا بدوميها مقعابا دمنا بينهم حسن مع أحمد بيكولي بدوميها كنت جناح سيجا كوفر قلب الصوماليا أعمل مع الإنسان تمام جناح ستة وضياش دقنكا علماء الدينكا haweenka abwaanada saxaafadda dhammaan intii roogda maqaam kasta iyo roogda walisinka salaamay salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh mudan madaxweyne iyo mudanayaal dahabshiil group xaqiiqda dahabshiil martimaka ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya si la socotaan dahabshiil in badan intijarti macnaha burburku intii quality walki shaqeeyayba deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya dahabshiil runtii wali wehel leetaaba wali saaxiib u leetaaba dhammaan reer koonfur galbeed dahabshiil si la socotaan burburka madadii oo dadka shaqeeyeen waalidkii awlaadiis waaye bersho Yurub qaxeen bersho Afrikan qaxeen qaardo kala duwan dunida ki wali haytayba beesadani xawlaasi ahayd dahabshiil runtii mudan madaxweyne wali sharafnayaba inaan ku qeybgal xafladan daafurka daafurahaya sabtan qiimo badan ay dahabshiil ka dhista koonfurta bartamaha Soomaaliya runtii caasimadda Muqdisho oo caasimadda wali ku qurux badan sabtiga kala daafurtay marka reer koonfur galbeed qaasatan reer baydhaba wali walbadan ka taamayana inay dhowja ka aragaan dhismaha si sharaftan leh oo dahabshiilka dhisa in la dhisa magaaladiyo runtii wali taas tilmaamaseba in dahabshiil koonfur galbeed qaasatan baydhaba iyo macnaha heelanta walkata iyo macnaha diyaaranata mudan madaxweyne dahabshiil dhammaan dhibaatooyinka dalka kadhii haata abaara haata qoon هذا والبرشة هذا نسيب مساجد ولي كديش تبى كعموله ورنتي مكفارة كورنا يا كديش تي أتون ولا بقى قادنا إن شاء الله تعالى ولا يتم إنهم بخير هذا دونا إن عفماتك وعبرشة اسمعينك كمان إنهم بخير هذا دونا ماذا ماذا دابشيل مجرد ما كبرنا يبقى حوالات لكن ولا كل اللي يفرق ولا كل دي كمية somtel oo ah shirkad isgaarsiineed oo runtii aan baahnahay dalmug in la kordhi somtel dahabshiil way la wareegtay baaxadii lama kuntu misadii bilisi siyada yal wareegtay ilaa yawmina hada wali ku shaqeeyay daba gudaha Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed hadii wali ka faano koreeba anoo ah wakiilkii dahabshiil group gobolada inii somtel maalgelinta inka badan bartamaha koonfurta iyo koonfur galbeed qabatay ilaa 8 xarumood ya koonfur galbeed xarumaha somtel wala rajaynaa baa sanadku foodan yahay lama ku 20 iniyo macnaha intaasan lamida umka darna hadii ilaahay uu dilay oo kala dahabshiil wali kale hakooda baadeeg dahabshiil bank international DBI طبعا انا رايت فوركان مالجرين يسو بياسه طبعا
كان عصنا مجرته مستدل ما نسمه إلا بنجوس باقى بينوس اللي لكن معناها إن ولا هذا كوربا الكوبابو شخص جاي لكن بنجوس هاي سنة شن اللي تضبابو يا رب مركبة هرب كور تيجي لسوعتهم بنجياس ولفون يقال لما كنت متضبط إلا يومنا هذا لعكون مال كليني دجاجنا كفر كده مال كليني ولي كورونا بس ده بلا مليون ولي كفاية سلبة تطلعكم قف كورونا بكفاية سدي كمان كان عصير ده في ده تبكي معناها بنجيكوا سمرا بعد نشوف يو ده في ولي كده تبع هذه تسون اللي رو مايكرو فاينانس مثل مايكرو ذهب مين مايكرو ذهب ولي بواها هذه كان عصير ما دام كان عصير وي نايتي بقار ليتي هاني دمت روكشة لما الجديد إني كان عصير يلايتي ميز ليته تبقى ليته دكانة يرى مع ذلك تذكير هاي سجن اللي ما الجديد نمبر ولا إلا ستين بقول إياه كنت يدور قف يزول لكم الجديد ولا سيادة كاس بس انتهيت $7 إلا $6 ما $6 سدير ولا اللي موجود بيه مع الجديد وين دافشيل بانك انترناشونال انفستمنت قالوا مركز دافشيل ولا هكوب تبا إني كان عسيق هو سير راي يمكن عسيق وينا يكوب يا رنتي يقول ستي أنا رنتي إيه كان كم هديو ما من كوفر قلبين ورنتي نيكل شقي سيد معناها تتكاثن هالفدان دوكومنتين يوم بباهناي هذه هذول اللي شقي ده تقول بين دبا قدومي هنا دجمدا أقول على وثيق ورنتي هاي صاحب إيه لو قلنا نيكل شقي لما عند دوكومنتين يوم شقي أنا ولكن معناها ما نجاي لما مسؤولين رأوا كوفر قلبين أنت هلا يا مدهونه أنت هوسي أكون هوسي إني سويت نشاط معناها دابشين ما كلا كردي أديك لرو إيدا مي إيدا ومعامل بايمنت أدوية ولا هالمرتي أنا ولا لمكورها يبقى معامل بايمنت قال لمكورها ما دام التكنولوجيا دي هالمرتي إيدا وأديك لردا دابشين جروب ولكن فوق ذاي إني على كده يجت بيلتي جديدة تدا برنتدا فيها مشاراتك فوق ذاي ولا سكيدا إيدا هذا إيدا نرد يا ولي بوها بس تعمل البحث وعمل لك دراسة الدويدة أفرت يكون على الدرس دراسة إيدا ما كان ينتهي جد جماعه يدو عفيز كمان فرنا دابشين هيرنت ما يسوي بيه إذا ما كان يقدر وسيدرس يفوق جماعة يكون تز بيسا كله بها ولا أنا دعنا وسلا يكفي السدير مركز دابشين جروب مركز دابشين جروب مدعم هذا حيني ولد ديار نتابع إني أدي الله وذنا وقرانه سنتك هذا لما يكون اللباتن ما دام هذا لما يصير نعرف نبين اللباتمين إلا كنت مدينة مدرسين هذه لا ودي لا قرار ولا كفاني جودان صاحب اللي داشين كفاني إن الرئيس كوفر قلبت علة العقد يو كده كلمة كوه ولي عندنا لعن العقلك اللي إنت كبني آدم وهي شل دوين لكن بقول كي بس عشان يشل العقد يقال ده شرف لا يا كما هاي إذا ما ستين وقتها عليه جودهان أديك الدهبشيل ولا تنرابا هكذا وهذا مرة هكذا وهذا مسجد هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كبعلي هذا القانون مصر يستعجل لكن وحنا هذا كلية الآن غيركم فوق البيت والشيء الفسمة تيجي وقبضنا والآن جليني جوالنا الكونفرنس الآن جليني كونفور البيت عن كسميني الفسمة تأذى بدن marka koonfur boqolkiiba 60 kamid ah waxaan gelinay marka aan ka hadlay software iyo telecommunication waxaan gelinay waxa weeye waa koonfur galbeed ayaan gelinay taas macnaheedu ma aha in aan annagu dooranay laakiin waxa aan ka aragnay dadka deegaanka ku nool sida ay noo soo dhaweeyeen runtii
waxaan nahay kambaniga meelaha kale kambaniga labaad baan nahay laakiin marka koonfur galbeed aan joogno waxaan aaminsannahay inaanu nahay kambaniga koowaad dhinaca telecommunicationka marka la eego dhinaca marka la eego e-dahab lacagta la isugu diro mobilada oo meesha noogu sarreysa sidaa awgeed bayna soo jiidatay waxaan u samaynay boqolkiiba 60 investmentiga aan ku sameynaynay koonfurta lagu sameeyo gobollada koonfur galbeed waxaa kale oo rabaa halkan inaan ka caddeeyo waqtiga dhow waxaa jira waxa la yidhahdo telehouse waxa weeye in la rakibo diish weyn lagu rakibo baydhabo oo aan ku siino true diishash yaryar aan ku siino maxaa la yidhahdaa koonfur galbeed maamuladeeda magaalooyinkeeda ama degmaha noqoto ama tuulaha noqoto si haddii linkigu u go'o aan u helno back up labaad reer koonfur galbeed arrintaasna waxaan rabaa maanta in halkan kaga dhawaaqo inaan rabno inuu noqdo serviceka iyagu ama uu noqdo ka koowaad oo magaalada ka jira back upna waan ku samaynaynaa biidni illahi tacaala kariim intaa wixii ka dambeeya madashu way salaaman tahay mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baarlamaanka wasiirka maaliyadda gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada madaxda kale halkan joogta madaxda iyo shaqaalaha daabshir group ganacsatada qiimaha badan ee halkan isugu yimid ururada haweenka oo dhaqameedyada iyo bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib waxaan rabaa marka koowaad inaan reer koonfur galbeed ugu hambaliyeeyo horena waa u joognay ase dahabshiil adeegyo badanna waa soo kordhinay bankiga dahabshiil oo la furay 17 runtii reer koonfur galbeed si wanaagsan ayay u garanayaan waa yaqaanaan waddan kasta oo dunyadan horumaray wuxuu ku horumaraa finance sector qaybta maaliyadda haddii qaybta maaliyadda aanay nidaamsanayn horumarka waddanka ama gobolka waa loo baqaa ganacsatada waxaa la yidhaahdaa ama buur weyn ahaaw ama buur ku tiirsano ganacsatada reer koonfur galbeed waxaan rabaa inaan u bayaaniyo inay ku tiirsanaadaan adeegyada maaliyadeed ee bangiyada bacdamaha waxa ay sameynayaan ay ganacsi tahay inay ka faa'iidaystaan bangiyadu waxay leeyihiin taariikh fog waqtiga oo gaaban dartiis ma rabo inaan taariikh aada u dheer galo laakiin waxaan rabaa in yar inaan xuso in banking la sameeyo oo qaab bangi loo shaqeeyo horta islaamkay ka timid marka hore islaamka civilization ka timid Syria iyo wadamadaana ka timid India iyo China ku xigay laakiin bankinga casriga ah oo bookkeeping waxa la yiraahdo la isticmaalo qarnigii 15aad ilaa kii 16aad ayay waxay ka hirgashay waddanka Talyaaniga oo bookkeeping system hadda la isticmaalo ee casriga ah ee debit iyo credit card laakiin islaamka ugu horeeyay oo ay ka soo dareenayeen maxaa loo sameeyay bangiyada waxaa loo sameeyay ganacsatada dareendiska ah iyo beeralayda waa labada meelood ee dhaqaalaha waddanka ku xiran yahay berigii la samaynayo bangiyada beeska ugu horeeya oo looga fikiriyay loo sameeyo waxay ahayd beeralayda iyo traders dadka ganacsada Soomaaliya haddii aan imaado markii ugu horeysay waxay ahayd 1900 iyo waxay ahayd 1920 bankiga Talyaaniga markuu yimid 1920 waxaa jiray 32 ayaa waxaa yimid banki kale oo isagana la yiraahdo banki Napoli iyo mid kale la yiraahdo mid Torino ka yimid 1952 National Bank of India iyo Greenland Bank oo isku darsan ayagana gobolada waqooyi yimid 60 markii aan dowladda helnay waxaa la sameeyay bankiga dhexe
kadibna dowladdii gacanka bangiyadii talyaaniga ahaa iyo kii hindiga ahaa iyo kii ingiriiska isku dartay oo ka dhigtay commercial bank of Somalia bankiga ganacsiga wixii ka dambeeyay dagaalada dhacay 2000 laga soo bilaabay bangiyadan private-ka ah oo gaarka loo leeyahay bilowday ومن ما commercial bank هذا إنه بدون كنسلته هاي لكن بنجيلا برايفت كأ أيا حتى بنجيلا جناسية أيوة كذي بنجي دابشيل وفوقه أنا يوصفه وجرا بنجيلا سبب أو إلى حتى أي شيء تدور بنكي لما بنكي وكلامنا أي بابلان كسر bangigu wuxuu leeyahay qayb yaraada microfinance oo loogu talagalay ganacsatada qaybaha hoose ka shaqeeya oo aan dhaqaalo badan haysan wuxuu leeyahay qayb finance oo loogu talagalay ganacsiga dhexe iyo midka ballaaran labadaba waxaan soo wadnaa insha allahu tacaala waan qorsheynaynaa qayb la yidhaahdo aadro dahab oo beeraha loogu talagalay haddii ilaahay yaa mustaqbalka oo aan rabno inaan beeraha ka dhisno gobolkan koonfur galbeed xoolaha iyo beeraha wuxuu ku yahay qani resourcesku uu leeyahay waxaa kaloo qani ku yahay human resource dad hawlkala shaqo badan aqoon la waddanka jooga waxaan rabnaa dadkani waa ognahay entrepreneurs ah oo hal abuurkoodu wanaagsan yahay hal abuurada aad la timaadaan insha allah inaan waxaan rabnaa maalgelino oo aan ka dhabayno riyadiina qof kasta oo horumar ku riyooda waxaan rabnaa inaan riyadiisa ka dhabayno oo aan maalgelin u sameyno insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan hore wada socon doono oo aan dhammaanteed wada faa'iidi doono insha allahu tacaala khayr badan aan idin rajeynayaa aad iyo aad umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi maantii waxaan idinku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaada ka bacdi waxaan dhab ugu faraxsanahay maanta inaanu ka soo qayb galno xafladda ay soo qaban dhaafisay shirkadda dahabshiil oo macno weyn ugu fadhida koonfur galbeed khaas ahaan deegaanka hadda aan joogno oo baydhabo waxaa ogsoontihiin dahabshiil waa shirkaddii ugu horreysay oo ka furta xawaalad haddana ka furta bangi haddana adeegyadan faraha badan oo la sheegay ka furtay waxaa weeye xaqiiqdii wax weyn bay hobteen koonfur galbeed iyo reer koonfur galbeedna wax fiican bay dahabshiil qabatay waxaaba caddeeyey dadkii wakiilka ka ahaa dahabshiil waxaan u marinayaa siday ula shaqeeyeen dadweynaha reer koonfur galbeed dahabshiil si cajiibay ahayd baan u marinaya ama se waqti fiican bay u heleen ay kala shaqeeyaan haddana waxay ballan qaadeen in ay haddana wax weyn ku soo kordhin doonaan nin baydhabo iyo deegaamada ku xiriirsan koonfur galbeed marka waxaan leenahay dahabshiil soo dhawaada shaqada qabateen waa ku mahadsantihiin dadweynaha reer koonfur galbeed waa ku mahadsan yihiin siday la shaqeeyeen kolley wixii aad qabateen oo horumar magaalada qabteen oo ama masaacida waa sheegteen laakiin weli kowma joogtaan intaa ka sii badiyaan leenahay koonfur galbeed wixii aad ku kordhin lahayd oo horumarina ama wixii la qabashaa aad ku horumarin lahaydeen magaalada weli intaa inka badan bay ka sugaysaa wiil baa wuxuu yidhi aaba maanta siisaan maanta u dagaalamayay weli waa intaas oo lasoo maanta u yidhi hadda weli kowma joogtid waxaan leeyahay soo dhawaada wax fiican la qabta baydhabo wax fiican baa la qabateen hadalka kolley badan baa sugaya waxaan jeclahay intan kusoo koobo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna wasiirka maaliyadda gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha rugta ganacsiga culimaadudiinka iyo ganacsatada halkan jooga saxaafadda iyo dhammaan shaqaalaha bahda dahabshiil group waxaan is leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
runtii farxad bay tahay inaan halkan maanta aan xafladan ka samayno intaan xafladda kelmadayda gelin waxaan fariin idinka sidaa guddoomiyaha guud ee dahabshiil xaaji maxamed siciid ducaale oo iyo maamulkiisa oo runtii jeclaa inuu xafladan inagala soo qayb galo xafladan oo ay ahayd gurigu xilligan dhameeye waa ogtihiin waxay dib ugu dhacaysay in uu xaajigu inagala soo qayb galo isagoo danaynaya runtii gobol laakiin duruufaha iyo baasaamixi waayey fariin iyo ictidaar buu idiin soo diray wuxuu idinka codsaday inaad raalli ka ahaataan ka maqnaanshaha idinka maqnaan madaxweyne sidii aan xalay ka wada hadalnay halka waxaan ku furaynaa ma aha keliya guri qurux badan inkasta oo dadku markay dhulkooda aaminaan ee qurxiyaan waa la isku daydaa maalgelintuna waa hore u dhaqdaa laakiin waxaanu gurigaa hoos yaalla adeeg ummadda gobolka dano waxaa shirkadu shaqaalaysiisaa oo inka u shaqeeya dhowr boqol oo qof oo reer koonfur galbeeda oo gobolka hawlga shaqaaluhu waxay ku bilowdeen ibraahim cali cabdi baa ayaa lagu bilaabay maantana dhowr boqol bay maraysa runtii waa horumar dhowrkaa boqolna dhowr boqol oo qof oo kale ama dhowr kun oo qof oo kale ayay noloshooda ka qayb qaataan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xafladdan inoo xigta annagoo kumanaan shaqaalaynay in aynu isugu nimaano runtii sidaa ma doonayana waqti dheer geliyo laakiin laba shay baa ummad dhaqaalaheedu uu ku horgala ama economics gebigiisuba hal shay buu ku taagan yahay waxa weeye waxa yaraad haysato sidee baad si wanaagsan uga faa'iidaysa marka maxaynu haysanaa innagu xoogna waa haysanaa dhulna waa haysanaa hantina waxbaynu ka haysanaa intii inaan iswaafajinno ayaan rabnaa qofkii ganacsi samaynaya halabuur samaynaya qofkii hanti dhisanaya qofkii beer samaysanaya qofkii warshad samaysanaya intaba waxaanu diyaar ola nahay inaanu si shareecada islaamka waafaqsan u maalgelin innagu ummad muslimaynu nahay waxa inoogu qaalisan waa diinteenna wax diinteenna ka hor imanayana ku dhaqmi mayno ganacsigana waxaa la ogaaday baalinkii imika ay ogaadeen waaweynaa inay xagga u soo noqdeen xagga islamic bank because waa wax ilaahay soo dejiyey waa ka raxmad badan yahay waa ka qabow yahay waa ka barako badan yahay marka qaybta aanu xoogga saaraynaa labada shay ee imika ugu muhiimsan dunida waxa weeye lacagtu inay jeebabka ku wareegto lacagtu waa hebel ka qaad oo hebel u qaad laakiin hadday lacagtu ama sanduuq ku jirto ama jeeb ku jirto oo ay dhaqdhaqaaqi weyda macna yeelan mayso hantida ummaduna waxa ugu badan hantida ku jirta hantida makuutada waxaan maamulka koonfur galbeed uga mahadnaqaya si qof wax loo amaahiyo waa in hanti maguurta ah oo haysta halkan markii ugu horreysay aan nibo waxaan ka codsannay maamulka gobolka iyo degmada oo guddoomiyuuna kala joogo oo waxaan u baahannahay dadkii inaanu maalgelin u samaynee wax sugnaanahoo hantidooda sugaya baan u baahannahay waa laga hawlgalay waana ku mahadsan yihiin waana gobolka ugu horreeya markay noqoto welina aan wax nagaga soo noqonin qof guri dhigtay oo gurigiisa ka soo noqo sidaa uu sheegay ibraahim dad runtii dadka reer koonfur galbeed waa ku mahadsan yihiin si wanaagsan bay bangiga ula macaamilaan wixii lagu maalgeliyeyna waa soo celiya qodobka labaad waxa weeye technology oo waxaa loo baahan yahay dadkii inuu wada hadlo inuu dunida la xidhiidho taana waxaa suuro gelinaysaa telecommunicationkaan soo wadaa runtii waa mid casri ah oo wata macal halka u dambaysa iminka telecommunication gaara waa fiber optic in badda xarig lasoo mariyo oo dunida inoogu xidho taana mashruucaasi oo ilaa 100 milyan ku kacaya waxa wada shirkadda dahabshiil iyo Djibouti Telecom already waa project bilowday wuxuu ka soo bilaabmayaa Djibouti ilaa iyo Mombasa Djibouti soo maraya Berbera Boosaaso Muqdisho kadibna Mombasa kaana waa soo wadaa wuxuuna samaynayaa qofkii wax baranayay iyo xataa qalliimada in lagu samayn karo mustaqbalka dunida waqtigiina qalliinka waxaa lagu sameeyaa through internet marka
aad iyo aad baa umahadsantihiin farxaddii baa hadalku iga kala lumay reer koonfur galbeed iyana waana jecel yahay anana waa jecel wasalaamu calaykum waraxmatullah أنا ما سيجي كاسين ولي بهاي حسن عوض أو قدومية تهشير كروب كونفرت إلى برنامج الصومالية أو حفلة تهشير اسمع حسب تهشير ترتيبس مجال البيضاء وخشين كوكوي يوم انتشرت فكرة تهشير كروب بيوم وبلد ترك الصومالية حفلة ولي بتجرنا أنت ولي بميلون أي محمد حسن آدم وكم مدة كان عسرتها بعد الشرائع amaanta wali qabe dadkii hooyay xafladda fageed abu qiib gali daabshin group iyo tilmaameen yalla qab balse wal kasta wal qaliilaha male aan wali abaaray maadaama amaanta la sheegay inta dhaliish ah oo aan daabshin aan u arkaynay oo aan lahayn bal mas'uuliyiinteeda haddaad aragtaan aad u sheegtaan ayaan isku dayayaa inaan abaaro horta aad iyo aad u mahadsantihiin sida la sheegay dahabshiil intii ay Soomaaliya shaqo ka bilowday meelihii koow ay ka bilowday ka mid tahay dhulka xilligii sagaashameeyadii iyo ka dambeeyay burburkii dadkii shaqada inta ka bilaabay oo ummadda kala wareersanay sida ay sheegeen hawlaada badan u sameeyay bay ka mid ahayn oo ku mahadsan yihiin for example hadda guddi shan iyo toban ka kooban ayaa socda oo arrintan xafladda taa inay daafurka ay ka sameeyaan baydhabo ay yimaadeen runtii waxaan rabnaa maadaama aan nahay maamul goboleed ugu bilaaran Soomaaliya hoogaa waxaan is leenahay maxaa guddigaas oo kale hiban aad ugu yeelan weydeen waan leenahay maamulku waxaan ka codsanaysnaa arrintaas oo kale in dib loo fiiriyo midda kale rug waaye maalgelin baa la sameeyey anigaygaan hadda hadlayo dadka la maalgeliyey baan ka mid ahay dadka la maalgeliyey baan ka mid ahay waa ku mahadsan tahay shirkadda balse hoogaa maalgelin intaa ka bilaaran waa sida la sheegay hoogaa in la kordhiyo anigu intaan ogahay lacag 100,000 ka badan macnaha ma jirin hoogaa ma waxaan u malaynayaa in dhaqaalayarada waddanka miya oo ama kala daadsanaanta aaminaadda oo waddanka aan weli uruursanayn miya ma aqaan meeshaas maxoogaa waxbaan ka tabanaynaa oo lacagta weli dadka lagu maalgeliyo aad bay u yartaa in kor loo qaado waa midda kale adduunyadu anigu meelaha dadka hoogaa soo warwareegaan ku jiraa percentage-ka hoogaa waxaad moodaa inuu sare jiro aniga lacag waqti ilaa 2 sano oo kale wax qaatay 8% baa lagu dhigay hoogaa waxaad moodaa qiimahaasna inuu sareeyo oo bangiyada maalgelinta sameeya adduunyada 5 wax yidhaahda u badan oo la isticmaalaa haddii aan ahayn lacag waqtigeeda udeedaya fara badanoo xilli ah haddaan ahayn waqtigiiba kooban percentage-ka weli sareeyo midda kale qiibta internetka oo xaraaradda ah amba 4G-ga sida mobeelada lagu sameeyo kale lacagtaad ku shubito mobeelka oo kale weliga waa kugu jiraysa intaad ka isticmaasho weeyaan haddii ay noqonayso waxaan codsanaynaa in lagu sameeyo qiibta xaraaradda lacagta lagu shubayo inaan bil ku dhicine isticmaalkaaga lee ku dhammaan haddii la samayn karo taana waa codsanay walaalayaal midda kale hoogaa markaan shirkadda iyo odayaasheedii aan hooska maqalnaa in lacagta iyadoo wax lagu maalgeliyo reer koonfur galbeed oo inta ay meesha dhigteen ay yihiin ee aan dahabshiil lacagteeda aan muraabacdaas aan weli soo gaarin sida u badan koonfur galbeed oo ay meelaha ku cecistaan oo lacagtooda inta ayna soo gaarin lacagtii 100,000 gaaraysaba loo wareeyo xamar iyo hargeysa xaggaa ka aan waag ugu barin koonfur galbeed oo intooda un la isku celceliyo taasna waxaan codsanaynaa lacagta ay leedahay raasamaalka dahabshiil inay wax naga soo gaaraan waa codsanaynaa iyada mudan yaaliya marweyn mudana madaxweyne
waxaa sharaf weyn inoo ah inaanu kala soo qiib galno dhammaanteen adigu noogu sarreyso xafladda tan sharafta leh dahabshiil group waa guruubo fara badan oo isbiirsaday midda kale codsigii lay ku dhex jiraa barsanteed yarka oo la helo ummadda koonfur galbeed sida la sheegay dahabshiil ayagana waa ku faa'iidaystay ayagana way ku faa'iidaysteen faa'iidadana waxaan rabnaa hoogaa barsanteedka in dhulka iyo deegaanka lagu soo celiyo wax la taaban karo tajba ah dahabshiil la samaysay yidhaahdo sida magaalooyinka weyn sida haruntan kumeelgaarka baydhabo gobollada meelaha muuqda oo amniga ah dahabshiil in ay wax maalgelin oo muuqda ay ku samaysan oo codsanayna oo ummadda ay kalsooni badan ay kusii qaadaan sida guriga hadda ay dhisatay oo kaleba aada iyo aada umahadsan tihiin ammaanta waxaan la qabaa dadkii iga horreeyey wakti ma jiro hoogaa dad badan hadday hadlaan dadku waa sii yara daalayaan mas-uuliyiinta oo dhan baa dhiman waxaan si gaara u salaamayaa halka gudoomiyaha cusub ee degmada baydhabo xasan macalin welkan gudoomiye soo dhawow baan leeyahay shaqo wanaagsan baan ku leeyahay dhammaan ummadinta isugu timid waxaan leeyahay mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddana hood iyo bangigii soo biday hadduna furubaa soo biday haddana lankastaba furaagiiba usudooaye usulay bangigay furuday walaha kala been maaya lima dheegne أنا فورما يستينانا هي كده مسمارو فورما يستينانا إنه بني مارو إنه فرياقي بيرتاها إيه أيدك فرع سنة جيك إنه هنطوع شركتي أو تأشير هاي شركة دوبي سومالي أو إذاك دوار الدواء ميل راي مكبسر إيو هذا وكذا كتبت إسكاسيت ما هاي كي سان أرواح تأشير أو تدمير هذا يوم اللي لامل بقوي أو بتوع بس كابتن كابتن بس دي بس اللي كابتن لامل بقوي ساستراتيه يوم ما يجيك ميل راي تأشير سنجورس مثلا إذا أنا كفرح سنة تأشير بروك حفلة جيك مدوينها فوي أو بوجي أو تنزل ما يقول كيا إني كسوري كذا كوفكا بيت كارها قالوا بينهم أو جيليان ما جيلي أو تابط كورا نان ماركيا لهم ميل راي اسمه كاسي أو كذا أهم طوام يدور أو تاريخ أو كهبتي ميل راي بينهم بوجي كورا بناي كدس أو بناي كدس يا كدس تاسي بيكوا أورماني تفهمت يقول إني كبرشيد بطوك التدي نقالا بطوكيو ميلراي نولدية بكيرنا كتابين كذلك أوسير مستوى لكي تبدي تمزولا لكي يتا يقول كبرم وفي بلاد كيوالي فانا يهلجي بالجال سيكون تكدير سياسة كذلك سوال سيسي قرم لا إنها قوتي
ما يكون متأتى هيدو بدبادي معناها دولة تمتلي بدبادي وطن الصومالية جودها بدبادي يكون متأتى تهفيل مكي وطارق يريد لكنا إنك سو برايفت سيكتور لكن بيبقى برايفت سيكتور هم فايدة وبابليكا استراتيجية يا ميدا راي ولي كفاية سبيا متاسا ميدا راي فرقدي ما هو أديك سي ما هو بدبادي لأركو هدي سوبياس ما يكون ما نجاي ولا يكون مر ميدا راي جرونا ديا ما تيجي بعد تيجي سلطة شاكي يبغى سلاسي وبكرة تجارها مقال بينه وبين الفريق أو كباي مركز توني بجد تهجيل تكفيل لك أي زون مروان وايد مركز أو نبويو مروان وايد أنت أصلاً كمان نجار أنا أقول لك بيا ولو تبوي فلا بينا يك هذا الدونا مالي مهم كذا ما أتصل مركز تهجيل أتصل كقطبي كوالها يو أنو كقطبي تقول وكيل بهاي ما يكون بيجوبيكا كده لكن كاسيسين ما في ما بوبليكلي كوالا سا أو دبلي أو دابيل كمان كوالا ده ما كوالا كواي proposal كاسو ما يلا راي بوتو بيجو بيجو بيجيالي زي تمو هاي إن البوتو بيجو لما بوت إسبان راس الكوالا كرديجي أو كيالي اللي بيجو كتير ما هنا proposal كاسان لكواي أو مسافر سام بفيدين لما جينا كلام كلام كباوة ini orang itu ya ni istri dahsyat. Mereka hawa itu dunia dahsyat atau tergoi. Isu akhir artis dia jadi telah tuan. Bagaimana artis akbar ini artis dahsyat ini dona. Seperti ini matung hanya kau itu pada biasa yang untuk bahas. Lakin dahsyat mbak tidak lagi biasa ni rata menerima tonton. Muslim juga doa begitu. Baik buat selain ini kasih list oh itu dia no where dia utar syarikat anda itu aku tiru lagi akbar ya rimak ya makokar yang habis itu. Mereka jadi butuh ada operasi sendiri tarik yang tinggi juga ya tu. Mereka ini nak keparasana ini kupai di sana munasibatan. Amin sejarah itu boleh cinta bertengah dengan lagi atau biar itu tanah kebelawan. Maka kalau yang nak orang wujud lalu sah. Oke kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somalia dan Abdulaziz Hassan Mohamed xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada marti sharafta nooga socota shirkadda dahabshiil oo ugu horeeya gudoomiyaha xasan cawad cabdiraxmaan xalane iyo cabdirasaaq xaji xuseen dhammaantiin sidoo kale gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada gudoomiyaha rugta ganacsiga gudoomiyaha ururka aqoon-yahanada culimaadudiinka odayaasha dhaqanka saxaafadda ururada dhalinyarada dhammaan bulshaweynta fadhida hoolkan waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saraan ka bacdi kuma dheeraan hadalka intii ugu badneed waa la sheegay waxaan usoo istaagay oo keliya inaan laba shay midna waxa waaye aan ugu hambaliyo shirkadda dahabshiil group in maanta aan kala soo qayb galno dahabur xarunta ugu weyneed oo sida la sheegay oo ah xaruntii ugu weyneed marka la fiiriyo qariidad ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya shirkadda dahabshiil ay ka dhistay runtii waa ugu hambaliyeynayaa in aan maanta qayb aan kala noqono isla markaasna lagu sharfo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya inuu asaga xariijadaas sameeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan ooga mahadiyo adeega iyo waxqabadka ay bulshada Soomaaliyeed runtii ay u hayso runtii sida habeen dowlad markaan waqtiga la kulan aniga madaxweynaha oo xataa u siiyay waa xaruntaas daar iska weyn oo iska dhisan oo qofoof ma noqonaysa daar waxay noqonaysaa adeegyadeedii oo dhan iyo howlihii shirkadu ay qabanaysay waxa waaye ay u dhan yihiin marka aad u mahadsantihiin waan ku soo dhaweynayaa runtii madaxdii mas'uuliyiintii naga horreysay halkan soo istaagtay waxyaabihii ka hadleen marka laga soo tago adeega shirkadda dahabshiil waxa waaye bulshada Soomaaliyeed u hayso marka laga soo tago ay ku muujiyeen hadalladoodii ay ka booqatay in shirkaddu ay tahay shirkad Soomaaliyeed ee Soomaali ay leedahay tahayna shirkad u adeegaysa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka laga soo tago runtii waxaa aad ii soo jiitay hadalladii ee mas'uuliyiinta ugu horreysay halkan ay ka sheegeen ay kaga hadlaayeen bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan dhanka soo dhaweyntoodii wada shaqayntoodii iyo macaamilkii wanaagsanaa ayaga shirkadda dhex maray iyo sida uu sheegay Sheekh Ibraahim oo ah madaxa shirkadda dahabshiil magaalada koonfur galbeed uu kaga hadlaayay ganacsatadii maalgelinta shirkadda ay ku samaysay inay yihiin dad ugu badan
ugana fiican waxa waa amaahda iyo wixii maalgelin investment ay qaateen dib u soo celiso marka taasna ay muujinayso dadka reer koonfur galbeed waxa waa inay yihiin dad sida sifada lagu sheego ammaanadana ku fiican soo dhaweynta martigelinta iyo walaalnimadana ku fiican iyo yihiin dad soomaalinimadu ay ku weyn tahay marka taas waxaan rabaa inaan idhaahdo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin allihii sifooyinkaas siiyey ayaan ugu mahadinaya waana waxa sharafay ii tahay mas-uulkooda ah inaan ammaantooda inaan maqlo marka waa heybad ilaahay idin siiyey cidnaysa idinka qaadi karana idin leeyahay shirkada daabshiina mar labaad waa uga hadlayna runtii waxaan rabaa marka inaan si gaaran aan uga mahad celiyo isla markaasna ugu dhiirigeliyo gudoomiye xasan cawad iyo tiimkiisi runtii dardaarankii ugu dambeeyey soo jeedintii gudoomiye gobolka halkan uu ka soo jeeday oo ku saabsaneed marka in shirkada daabshiin ay gacan ay ka geysato sidii loo dhisi lahaa bridgekaas runtii gudoomiyuhuna uu ballan qaaday inuu dib uga noqon doono talada si mas-uulnimaha waxaway uga dhaadhicin doono dadka taladii kala dhexaysa laakiin waxaway uu ka bixiyo rajo fiican in shirkada daabshiin marka mashruucaas ay suurto gelin doonto runtii gudoomiye waxaan rabaa si ay kuugu fududaato in mas-uuliyiinta dib ugu noqonayso inaad mashruucaas ay kula ansixiyaan inaad u sheegtahay mashruucaas waxa waaye ma ahan dhismo wado oo iyo buundo oo keliya waxa waaye waa dib loo soo noolayna astaan soomaali oo dhan ay wada leeyihiin sababtoo ah wadada ay buundadaas laga dhisaay waxaa ku taalo shay soomaali oo dhan meel walba ay joogaan isla yaqaanaan oo qofkii baydhabo ka yimaado la weydiiyo macnaha ma isku soo sawirtay fardihii ku yahay ishi baydhabo oo ku yay saxadda ah marka astaantaas maaha astaan oo reer baydhabo ay keliya koonfur galbeed ay leeyihiin soomaali oo dhan askare marka in dib bilicdeedu loo soo celiyo waxa waaye meel taariikh waaye waa mas-uuliyadda aad iska saartaan aad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa dardaaranka ugu dambeeya inaan shirkadda mas-uuliyiinta inaan idinka codsado inaad noqotaan marka dadkii waxa waaye u ergeyn lahaa ka warbixin lahaa deegaanada koonfur galbeed marka aad khusuusan marka aad la kulantaan shirkadaha waaweyn ee caalamka ha noqdaan kuwa internationalka ama kuwa localka ee investorska ah sababtoo ah qofka beeralayda ah waa aragteen dhul walbo marka wax lagu rido waxba kama soo baxa dhul waxaa jira waxba ka soo bax dhulusa waxba ka soo bax marka qofka xitaa markuu beer uu abuuranayo wuxuu fiiriyaa meesha waxa waaye intuu wax ku rito siduu u saaran dalayga uga soo bixi karo dadka investors waxaad u sheegaysaa koonfur galbeed waa meesha ugu habboon ugu munaasabsan waxa waaye investment lagu sameeyo waxaa ka faa'iida investorkaas marka lagu sameeyo maalgelintaas lagu sameeyo qofkii maalgashana waa ku faa'iidaya shacabkii waxa waaye deegaanadaas deganaan waa ku faa'iidaya koonfur galbeed waxa weeye waxaad la socotaan waxay ku tahay astaan ama caan ay ku tahay in ay qayb ay ka lafdhabar ahayd inta ugu badan 70% wax soo saarkii Soomaaliya ku dhistay marka meelahaas wax soo saarkaas dib loo soo nooliyo dib loo hirgeliyo koonfur galbeed kale kuma noolaanaysa Soomaaliya oo dhan ayaa ku noolaanaysa marka insha Allah waxaan rabnaa marka ayaga qofku aad uusan shaki uusan ka muujinin in waxa waaye uu ku soo dhiirado u yimaado anaga sida aan ballan qaaday mas-uuliyiin maahan waxa waaye intaan xilkaan ahayn qof walba mas-uula kii naga soo horeeyey iyo kan naga dambayn doona koonfur galbeed wuxuu diyaar u yahay qof walba oo imaanaya raba inuu deegaankan horumariyo horumarkeedu gacan u ka geysto waxa waaye in lagu soo dhaweeyo si fiican loola shaqeeyo ayadoosan marka insha Allah waxa waaye labada dhinac ay ka wada faa'iida marka soo dhawaada leeyahay waana ku mahadsantahay waxyaabaha noo keenta waxaan rajaynaynaa in wax qabadka waxa waaye intaas in ka badan uu ka sii bato horseed aad u noqotaan in shirkado kale macnaha xoogaana ha u arkina hadhow in shirkado kale kula tartami doonaan waxa weeye xoogaa conference ay maanta laakiin inaad hormuud inaad u noqotaan inaad ku dhiirigelisaan shirkadahaas kale inay yimaadaan gobolladan marka waxa waaye investment fiican lagu sameeyo insha Allah waxaan rabaa marka hadalka inaan halkaa kusoo gunaanado aad inoo ogolaataan marka inaan kusoo dhaweeyo khudbada sida caadi ah marka shaqeyno uu noo soo gabay bismillah gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed wasiirada koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada xildhibaanada koonfur galbeed gobolka daabsiin uu hogaaminayo gudoomiyaha iyo gobolka kale daabsiin gobolka baay odayaasha dhaqanka ururada bulshada aqoon-yahanada dhalinyarada civil society-ga inta xafladan kasoo qaybgashay dhan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharafay noo tahay inaan maanta aan goorjoog ka ahaano
xafladan quruxda badan munaasabadan aad u wanaagsan lasoo diyaariyeen dahabshiil ee lagu daahfurayay gurigii quruxda badnaa ee laga dhisay degmada Baydhabo oo dahabshiil ay dhisatay xarig jarkiisa ah iyo waxqabadka ay qabteen dahabshiil buruur oo ilaa iyo 4 hay'adood u kala baxayo iyo horumarinta ay ka sameeyeen deegaanada lagu daahfurayay sharaf weyn noo tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan rabaa wax yar inaan dahabshiil aan uga mahadceliyo shaqooyinka fiicnaa ay u soo qabteen bulshada reer Koonfur Galbeed gaar ahaan dadkan reer Baydhabo oo nasiibka u helay dahabshiil runtii waxay anfacday Soomaaliya si kastoo noocyada ay u shaqayso dhanbay Soomaaliya u anfacday markii uu burburay qarankii waxyaalihii dowladnimada laga rabay oo dhan iyay qabatay bankigii la dhihi jiray bankigii ganacsiga iyo kaydka Soomaaliyeed ay noqotay ganacsi iyo kaydka Soomaaliya maanta ay leedahay waa dahabshiil bankigii horumarinta la dhihi jiray shaqadiisa way qabatay waa bankigii horumarinta oo mashaariicda ugu badan ee Soomaaliya lagu horumarinayo dadka bixinaya intaas waxaa dheer waxay ahaayeen samafalayaal dad Soomaaliyeed oo xoolahooda ugu tabarucayo walaalahooda dhibaataysan oo duruufaha kala duwan soo martay abaar ha noqoto cudur ha noqoto oon ha noqdo daad ha noqdo wax walaalay wixii dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan la soo gudboonaado waxay la taagnaayeen taageero iyo deeq iyo garab istaag meel walba Soomaaliya ka mid ayadana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan si gooni ah aan u bogaadiyo dadka reer Koonfur Galbeed oo ay maalgeliyeen oo haddana ay ka abaal sheeganayaan oo ay leeyihiin dadka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan dadka reer Baydhabo waxay noqdeen dadkii ugu fiicnaa Soomaalida oo ammaanada sidii loogu dhiibay iyo shuruudii iyo sharciyadii aan dhiganay dahabshiil dadka ugu horreeyay buuxiyay noqdeen tan la yidhi aad iyo aad ugu mahadsan yihiin dadka reer Baydhabo sidii ammaanada loogu dhiibay oo maslaxadooda uga fiirsadeen oo ayagana u soo celiyeen waa ku mahadsan yihiin ninka markii uu is-ilaaliyo oo waxa uu xaqa u leeyahay uu sameeyo oo wixii lagu aaminayna uu soo celiyo markaasuu adduunyada aakhiraba faa'iidaya ganacsiga iyo maxay ahayd horumarintii maalgashiga idiin soo diyey waa mid ku salaysan diinta islaamka oon ribo lahayn oo si sharci ah idinkana waxay idiin tahay faa'iido iyo horumar waxaan leeyahay marka intii ka faa'iidaysatayna aaday u mahadsan yihiin inta aan ka faa'iidaysanin oo fahmi la-aana waxaan rabnaa inay fahmaan inta darbiyada iska fadhido oo shaxaadka iyo maxay ahayd iisoo tuurka ku noolna inay bedelaan dhaqankaas baahida waxaa looga bixi karaa inaad shaqaysatid maadaama maanta ay haysataan dad Soomaaliyeed oo bangi ah oo garab istaagayo oo ku taageerayo shaqooyinkiina iyo businesskiina iyo noloshiina inaad ka faa'iidaysataan darbiyada laga kaco darbiyada aan la fadhinin oo aanan la sugin wax la soo diro iyo waxay hay-ad keento midna beeraan leenahay khayraadaan leenahay waxaa diyaar noo ah maalgashi waxaa diyaar noo ah matooro waxaa diyaar noo ah lacag in lagu bixiyo halla maalgashigaas ha laga faa'iidaysto dadka reer Koonfur Galbeed meel kastay joogaan ha u diyaar garoobeen dahabshiil iyo shirkado kastoo yimaado inay sidaasoo kale u soo dhaweeyaan oo maalgashiga ay ka faa'iidaystaan runtii waxaa la dhisay guri qurux badan oo saaka anigaba aan tegay oo lasoo furay xarigga laga jaray intii aan arkayay gobollada Soomaaliyeed aan soo marayay guriga ugu qurxan buu ahaa waxaad dareemi kartaa gurigaas quruxda badan kalsoonidii lagu aaminay in laga dhiso Baydhabo waa waxay dadka reer Koonfur Galbeed iyo maamulkooda ay kasbadeen waxay u baahan tahay marka magaalada Baydhabo iyo Koonfur Galbeed in laga shaqeeyo amnigeeda iyo horumarkeeda iyo sidii dadka kale ee ajaanibta ah ay ugu soo dhiiran lahaayeen oo u maalgashan lahaayeen aan ka shaqeyno oo aanan ka shaqeynin sidii inta hadda ku soo dhiiratay ay ku tegi lahaayeen oo lagu burburin lahaa kuwa habeenii maalin ku fikiraayo inay dadkan dhaqan oo shaqaysanayo oo amniga qabo oo horumarka qabo inay carqaladeeyaan oo noloshooda iyo horumarkooda
dhibaan qabana waxaa weeye waa laga qabanaya insha allah ma aqbalayno dadka reer koonfur galbeed in horumarka ay ummadda kale ay qabto soomaaliyeed iyo gobollada kale ay gaareen kuwa caqabadda kuwa hootiidan inay gaaraan cidna raalli ogama noqonayno mana ogolaanayno insha allahu waxaana leenahay dadka la midka ah meesha ay gaareen iyo meesha ay marayaan mara yaana laga fikirin nin kale oo soomaaliyeed iyo nin meel kala joogo $10 iyo $20 uu soo diray in ummaddan horumarka gaartay lagu dhibaatay cid laga yeelaayo dahabshiil aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadka reer koonfur galbeedna saas oo kale aad ay u mahadsan yihiin waxaa ii muuqdo horumar iyo tillaabo fiican oo noocyo badan kala duwan oo ay kow ka tahay tiknolojiyada cusub oo la gaaray oo qaybta internetka sida uu sheegay gudoomiyaha iyo hadda meesha la marayo ay tahay waxaa kaloo noo muuqdo dadkii aa arkayseen fanaaniinta abwaanadii tusaalihii fiicnaayayna siiyeen in adeegga la gaarsiiyey meel kasta oo soomaaliya ninka geela la jiro uu gaaray ninka beeralayda uu gaaray nin walbaba isticmaalkiisa meeshiisa uu ku isticmaalayo aad iyo aad u mahadsantihiin waqtiga oo kulun dartiis waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo dahabshiil gurood shaqada fiican ay qabteen iyo maamulka guddiga dahabshiil ee gobolka baay ayagana adeegyada fiican ay sameeyeen inaan uga mahadceliyo runtii wixii ay ku wanaagsaneedeen oo dhan waa la sheegay wax kaloo ka badanna waa la iska filayaa gaar ahaan dadkan reer koonfur galbeed waxay iska filayaan adeeg intaas ka badan oo ah adeegkii bulshada ay lahayd wixii la wada lahaa wixii gaarka ah waa ku guulaysateen shacabkii reer koonfur galbeed waa maalgeliseen nin kastoo inuu shaqaysta rabay waa taageerteen dadaalka hobadubadooban hayna danyar ballanka dulmiyaana idadka aamini daacadnimada dhanka adeegasa dadkii dalkan hiraasa dahabshiil gruubna saasu hawlaad shilinkii kudarsata degdeg lanka andiirasa xirfadii aaminnimo leh dahabshiil alangorode kudarso dahabshiil hawlaada ii dahabka hel ada oo ii daar roogdo inis dhibna telefoonka somtala fariinta ku fiirsoy bangi saabtiis furuntaa xirfad i war hasaar leh hemigii bulshada heer islaan yahakin hasliday dhikoy beesada dahabshiil bank international كفروي دهبشيل بانك انترناشنال اكاونت شله كارن اكاونت سيفن اكاونت iyo investment account kihiroy account ka dahbshil bank international ideega asriga ee idahab adoo isticmaalasa telefoonka somtal way ideega idahab bees on ku diro kortay waana laakiin ku diro koray account ka dahbshil bank international dahbshil group an isticmaal telefoonka somtal ideega internet ka 4G hawarishay id ansaray an isticmaal voice call video call marba ada hatuusha sim card ka somtal man isticmaal kortay ideega ha ila oo hakikla hariir koran ama kala hariir korta qaraabada adduunyada shal jiraan qiimo jaban iyo itsaafee dahabshiil group dantaw dantiye